maxay tahay halka sifo ama halka tilmaan ay wadaagaan dhammaan dadka guusha gaara dadka ay nolosha soo dhoweyso أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. السلام عليكم وادكم حسن تهي داوشة موقال كان قصو دوو فكرة magacaygu weygiisu sakeyn kadib markii aan fiiriyey dadka nolosha ku guulaystay waxaan arkay inay wadaagaan hal sifo sifadaas oo ka dhigtay inay gaaraan ahdaftooda inay ka dhabeeyaan himilooyinkooda haddaba anagana haddii aynu doonayno inaynu gaarno ahdaafteena inaynu dhigano dunida raad wanaagsan waa in la inaga helaa sifadaas haddaba maxay tahay sifadaasi waa in wax laga fiiriyo mar walba dhinac wanaagsan aad aynu ugu baahanahay midaas runtii waxaan arkay dadka guusha gaaray inay midaas aad ugu dheereeyaan xaalad walba ku sugan yihiin qaab walba iyo mushkilad walba wax kasta ay dareemayaan waxay kala soo baxayaan wax wanaagsan way helayaan way mar walba ayaga waxay raadinayaan wax wanaagsan firi qofkeena waxaad helaysaa wax adiga aad raadisid haddii adiga aad raadisid mar walba wanaagga waad helaysaa haddii aad raadisid mar walba nabadda waad helaysaa haddii aad raadisid mar walba jaceylka waad helaysaa sidoo kale haddii aad raadisid mar walba naceybka waad helaysaa haddii aad raadisid mar walba qabyaaladda waad helaysaa haddii aad raadisid mar walba dagaalka waad helaysaa waa sidaas adiga waxaad helaysaa wixii aad raadisid haddaba maxaad raadinaysaa waayo arrinka meesha wuxuu yahay anaga wax walbo aynu samayno waxay ku xiran tahay halkan mar waxaa arkaysaa adigoo aan doonin inaad wax akhrisid waxaa arkaysaa adigoo caajisan maxaa dhacay waayo muudkaaga ayaa isbedelay soo maaha sababta waxaad ka soo kacaysaa adigoo naceeb ku haya ma ogid waxaa kugu dhacay haddaba qaabka keliya aynu halkan ku bedeli karno waxay tahay in aynu noqono dad positive ah dad mar walba wax walba dhibaato kasta ahaato xaalad kasta ay ku sugan yihiin kala soo baxa wax wanaagsan inaynu noqono sida shinida oo kale shinida mar walba waxay indhaheeda la raacda oo ay raadisaa waxa wanaagsan geedaha udgaya soo ma ahan ha noqonin weligaaga sida diqsiga oo kale wuxuu mar walba hindhihiisa la raaca oo aad ku aragtaa meelaha aan fiicnayn haddaba waa inaynu noqonaa dad mar walba wax ka eega wax ka fiiriya dhinaca wanaagsan aad ayaynu ugu baahannahay fikraddan waayo nasiib daro waxaad arkaysaa in badan oo dadkeena ka mid a inay raadiyaan dadka xumaantooda dadka ceebtooda soo maaha bedelkii aad ku mashquul lahayd dadka kale ceebtooda midaada ayaa kugu filan wallahi haddii aad midaada mashquul ku noqotid ma helaysid waqti haddaba bedelkii aynu raadin lahayn meelaha dadka kale ay ku liitaan meelaha dadka kale aysan ku wanaagsanayn kaalay hadda kadib aynu raadino aynu mar walba indhaheena la raacno udugga jamaalka quruxda aynu raadino nabadda aynu raadino jacaylka aynu raadino ka warama fikraddan aad ayay muhiim u tahay waana u baahannahay annaga oo dhan subanahayna sal allahu alayhi wasalam waa qofka koowaad ee ku dayashada noo ah haddaba say ahaan jirtay noloshiisa subanahayna sal slam wuxuu ahaa mid mar walba raadiya wanaagga wuxuu ahaa mid positive ah mar walbana xaalad kasta wax kasta kala soo baxa dhinaca wanaagsan ila fiiri dagaalkii khandaq dagaalka axzaab oo ay ku sugnaayeen muslimiinta xaaladda ugu adag ee soo marta kadib markay gaaladoodan ay soo weerareen xaaladooda waxay ahayd mid aad u adag suuratul axzaab ayaa ka sheekeynaysa alle subxaanahu watacaala xaaladooda siday ahayd saxaabadii markii ay qodayeen godkii waxaa ku adkaaday meeshii ay qodayeen waxayna la kulmeen dhagax aad u weyn kadibna waxay ugu yeereen suubanaha sal slam waxay ku yidhahdeen rasuulkii allow dhagaxan waynu awoodi weynen kadibna intuu birti qaatay ayuu ku dhuftay suubanahayna sal allahu alayhi wasalam markaasaa dhagaxii waxaa ka baxay aftiin markaas wuxuu yidhi subana sal slam allahu akbar haddana mar labaad ayuu ku dhuftay wuxuu yidhi haddana allahu akbar sidoo kale dhagax haddana aftiin kale ayaa ka baxay mar saddexaad aftiin kale ayaa ka baxay allahu akbar saxaabada ayagoo dhan allahu akbar ayay wada dhahan kulligooda kadibna way weydiiyeen waxay ku yidhahdeen rasuulka allow maxaa dhacay waxaynu aragnay aftiin adigana waxaad tiri allahu akbar haddaba maxay tahay noo sheeg wuxuu ku yidhi markii kuwaad ayaan ku dhuftay aftiin ka baxay waxaa la tusay guryihii qaysar rome ayaan arkay markii labaad waxaan arkay guryihii faris markii saddexaad waxaan arkay guryihii yaman ila fiiri meeshaan nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ka hadlayaa mustaqbalka fog ayuu ka hadlayaa wuxuu yidhi waxaad furan doontiin ruum iyo faris ayaad furan doontiin waa awoodda ugu weyn ee dunida waagaas ayaad furan doontiin guryahooda ayaad furan doontiin meeshaas ayaad tegi doontiin maxay ku sugan yihiin hadda ma awoodaan qofkooda inuu banaanka u aado si xaajiis usoo guto ma awoodo balse fiiri fikirkan ila fiiri fikirkan fog ee wanaagsan ee xaaladan uu kala soo baxay suubanaha sal slam ee uu ku dhiiragelinayo asxaabtiisa wuxuu leeyahay idinka hadda midan ayaa la walbahaarsantihiin balse anigana waxaa idinku bishaaraynayaa in dunida dacladeeda aad gaari doontiin inaad ruum iyo faris aad tegi doontiin ha ka cabsanina kuwaan waa midaas mid aynu sheegayno fikirka togan mar walba wuxuu ku horseedaa guusha wuxuu ku horseedaa farxadda ma rabtidoo farxad bedel halkan xaal walba ku sugan tahay xiriiri walbo hadda aad dareemaysid kala soo bax wanaag ka fiiri dhinaca wanaagsan wax walbo ay tahay xaaladaada hadda u fiiri in khayr uu kugu jiro in alle subxaanahu watacaala xaaladaas uu kugu bedeli doono wax ka wanaagsan xiriiriga inuu kugu bedeli doono waasacnimo murugta inuu kugu bedeli doono farxad guuldaradana guul
naceebkana jacayl. diyaar ma u tahay inaynu faafino fikraddan, inaynu mar walba dadka ka fiirno dhinaca wanaagsan halkii aynu raadin lahayn dadka ceebtooda, dadka meesha aysan ku fiicnayn, inaynu raadino dadka meesha ay ku fiican yihiin oo aynu kala soo baxno wanaagooda kadibna ku dhiiragelino wanaagga si ay hore ugu socdaan, bedelka aynu dadka gadaal usoo jiidi lahayn oo aynu dib u dhigi lahayn kaale aynu ku dhiiragelino inay hore u socdaan. subanana sallallahu alayhi wasallam ma uusan ahayn oo keliya mid wax wanaagsan kala soo baxa xaaladda, balse sidoo kale xitaa magacyada wuxuu ka fiirin jiray dhinaca wanaagsan. hadduu arko magacaan wanaagsanayn wuu bedeli jiray. mar ayuu wuxuu la kulmay gabar magaceeda la yidhahdo Caasiya. markaas wuxuu ku yidhi Caasiya may wuxuu u bixiyey Jamiila. magaceeda waa Jamiila. Jamiila ayaa qurux badan. Caasiya waa magac laga naxo Soomahan. saa darteeda wuu dooran jiray hataa magacyada, wuu dooran jiray wax walba wuxuu kala soo bixi jiray waxa wanaagsan, waxa quruxda badan ayuu raadin jiray. sidaas ayay ahayd noloshiisa oo dhan. haddaba annagana haddii aynu doonayno guusha, haddii aynu doonayno nolosheena inay noqoto nolol qurux badan, nolol farxad leh, waa inaynu wax walba ka dooranaa dhinaca wanaagsan. haa ma diidani nolosheenu way leedahay dhinacyo kale, waad helaysaa dhinacyo kale, balse ogow sidoo kale waxaad helaysaa dhinacyo kaloo wanaagsan oo badan. haddaba halkii aad gelileed halkan 90%, halkan geli 90%, 10ka soo hartay intaas haddaad rabtid ku qaado, balse mar walba juhdigaaga iyo awooddaada ugu badan waxaad gelisaa dhinaca wanaagsan. markaas noloshaada waxaad ka dhigaysaa mid aad u qurux badan. sheeko waxaa jirta aan aad u jeclahay oo hadda ka horna idin la wadaagay. sheekada run ahaantii waan jeclahay mar walba inaan sheego, waayo waxay mar walba kugu dhiiragelinaysaa inaad wax wanaagsan aad filatid, in xaalad walba ku sugan tahay aad ka eegtid dhinaca wanaagsan. sheekada waxay tahay boqor iyo wasiirkiisa. wasiirkan aad ayuu u jeclaa, aad ayuuna ugu kalsoonaa. saa darteeda mar walba meel walba uu aadayo wuu wadan jiray. maalin ayay israaceen waxayna aadeen ugaar. boqorkaana wuxuu jeclaa ugaarta inuu wax ugaarsado, xayawaanada inuu ugaarsado ayuu jeclaa. duurkii ayay aadeen, kadibna intay ku maqnaayeen ugaartii ayaa waxaa soo gaaray dhaawac boqorkii. farta ayaa dhaawac ka gaaray, farta ayaa ka go'day. kadibna wuu xanaaqay wasiirka ayuu wuxuu ku yidhi fiiri sidaa noqday, farta ayaa ka go'day. wasiirkii intuu dhoola cadeeyey wuxuu ku yidhi khayr insha allah. boqorkii wuu xanaaqay, maxaa khayr ah? farteeda way go'day, waxaad leedahay khayr. markaas wuxuu ku yidhi khayr insha allah boqorow. wuu xanaaqay. kadib markii ay soo laabteen wuxuu soo laabtay boqorka isagoo caraysan. wuxuu u yaray waardiyaashaasi wuxuuna ku yidhi wasiirkan iga wada oo xabsiga hala geliyo. wuxuu ku farxay dhaawaca ay gaaray aniga, farteeda iga go'day, wuuna ku farxay hala xiro. kadibna intuu soo laabtay intaan xabsiga loo wadin ayuu u yimid boqorkii, uu fiiriyey, u dhoola cadeeyey. wuxuu ku yidhi insha allah khayr boqorow. wuu gubtay boqorkii. weli waad faraxsan tahay, weli waxaad leedahay insha allah khayr. xabsi ayaan kuu wada, waan ku xiri rabaa, maxaa khayra? insha allah khayr. maalin kadib boqorkii maadaama ay caadadiisu ahayd inuu mar walba ugaarto oo ugaarta uu aado, wuxuu aaday ugaartii, balse tookadan keligiis ayaa baxay. sababta wasiirkii mar walba raaci jiray asaga ayaa xabsi geliyey soo maaha. kadibna intuu ugaartii ku maqnaa ayaa waxaa qabsaday niman jaahiliin ah oo sanam caabuda. kadibna way xirxireen, waxayna geysteen meeshii ay joogeen, waxayna yidhaahdeen ninkan waxaan ugu dhowaanaynaa oon u gowracaynaa ilaaheena, ilaah ayaga caabuda. kadib boqorkii waa la diyaariyey, waxaa lagu seexiyey meel si loo gowraco oo loogu dhowaado ilaahan ayaga caabudayaan. intaan la gowracin ka hor ayaa waxaa hadlay ninkii kuwan jaahiliinta ah madaxa u ahaa. wuxuuna yidhi ka hor intaynaan gowracin waa inaynu fiirinaa horta qofka aynu ugu dhowaanayno ilaahayna. ilaahayna anaga waxaynu ugu dhowaanaynaa oo keliya qof ceebka saliim ah, wax ceeb ah dhan aan lahayn. kadib waxaa la hala fiiro horta jirkiisa hala baaro. jirkiisa oo dhan ayaa la fiiriyey, gacmihiisii, lugihiisii, dhinac walba in la fiiriya la bilaabay. kadib say u baariyeen waxay arkeen farti oo ka go'an ayaa la arkay. waxay yidhaahdeen naga soo dejiya, ma rabno annaga qof ceeb leh. qofkaan ceeb ayuu leh fadhan ayaa ka go'an soo maaha. hadda waxay yidhahdeen ka soo dejiya, ma gowraci karno, ilaahayna uguma dhowaanayno qof ceeb leh. boqorkii dharkiisa wuu soo qaatay, uu ka soo cararay meeshii ayuu yimid soo maaha. kadibna markuu saa u yimidba wuxuu yidhi wasiirkii hala igu yeero, ha laga soo daayo xabsiga. wasiirkii ayaa la soo daayey. kadibna boqorka hortiisa ayuu yimid. boqorkii wuxuu ku yidhi xaaladda ay u sheegay wixii ku dhacay. wuxuu yidhi maan saas ay ugu dhacday, waxaan kusoo fagtayna waa fartii iga go'need. wasiirkii wuu dhoola cadeeyey. wuxuu ku yidhi balse waxaad ii sheegtay la yaabanahay maalintii aan israacnay ee farta waxay iga gaareen, waxay igu tiri insha allah khayr. marka xabsi lagu gelina waxay igu tiri insha allah khayr. haddaba sirta ii sheeg, maxaa u lahayd hadalkaas? wuxuu yidhi hadda adiga waxaad ku fakatay fartaasi kaa go'day. haddii aan fartaas ahaan lahayn maanta waa lagu gowraci lahaa. wuxuu yidhi waan gartay midaas, balse adigana xabsi ayaan ku dhigay, maxaa u tiri insha allah khayr? ilaa waa lagu xiree, tan waa aragne, midaadana maxay tahay? wuxuu yidhi fiiri boqorow, aniga haddii aadan xabsi i gelin lahayn maxaa dhici lahaa? waa i wada lahayd, amaan ku raaci lahaa soo maaha. waa igama tegaysa, aniga ayaa ku og, waa i wada lahayd. kadibna labadeena waa la xiri lahaa soo maaha. kadibna marka adiga la arko inaad ceeb leedahay aniga qaban lahaa
booskaaga aniga ayaa la gowracdaa taa darteeda xabsiga khayr ayuu i ahaa allah ila fiiri xaal walba ood ku sugan tahay qaab walba hadda aad dareemaysid mar walba waxaad raadisaa dhinaca wanaagsan isticmaal mar walba oo adeegso indhaha shinnida oo kale markaasi waxaad arkaysaa noloshu inay aad u qurux badan tahay dadka guusha gaara waxay isticmaalaan caqliyadda ah inay wax walba ka fiiriyaan dhinaca wanaagsan mushkilad walba waxay kala soo baxaan xal halka dadka kale xal kasta ay ka raadiyaan mushkilad haddaba ugu dambaystii qofkeena wuxuu helayaa wixii uu raadiyo adiga maxaad raadisaa inta badan haddii aad raadisid mar walba colaada naceebka faqriga gaajada waxyaabahaas oo haddii aad raadisid ogsoonow inaad helaysid sidoo kale haddii aad raadisid mar walba jacaylka nabadda barwaaqada wanaagga guusha sidoo kale waad helaysaa ugu dambaystii qofkeena wuxuu helayaa wixii uu inta badan raadiyo haddaba tan iyo intaynu gurur kaga kulmi doono waxaan ku leeyahay mar walba mahadsan الغيم حتما ينجلي والشمس في جوف الظلام ستنتصر